Tani waxay dhacday anigoo 17 jir ah. Waxaan aadi jiray jimicsiga 3 ilaa 4 jeer toddobaadkii oo aan baska raaci jiray gurigayga agtiisa. Waxay ahayd maalin Axad ah oo hadda u baahsaday baskaygii, marka waa inaan sugaa mid kale oo waqti dheer qaadanaya. Waan wici lahaa waalidiinteeda, laakiin waxay maqnaayeen fiidkii. Taksiyada waxaa lagu raacaa lacag badan. Waxay ahayd habeen qabow oo barafku wuxuu bilaabay inuu xajiyo. Markaan waxaan soo saaray taleefankayga oo waxaan dhageystay muusig. Ku dhawaad saacad ayaa kasoo wareegatay. Qabow baa jiray oo qofna maan arag haba yaraatee. Taasi ma ahayn ilaa aan ka ogaado waxa kasoo baxay geeska ishayda. Waxa uu ahaa nin soo jiidasho leh oo ku labisan dhar waaweyn oo si tartiib ah igu soo socda. Waan ogaa in fiirsadiisu ay soo jiidan doonto dareen dheeraad ah. Markaan waxaan kaliya diiradda saaray taleefankayga. Wuxuu fadhiistay darafka kale oo uu eegay. Waxbaa ka maqnaa isaga. Wuxuu u ekaa mid sarqaansan ama daroogo isticmaala. Wuxuu markaas weydiiyey goorma ayuu basku imaanayaa. Waxaan soo saaray dhagihii dhagta oo waxaan iri waxaan u maleynayaa in uu dib u dhacay barafka dartood. Xoogaa ayuu i fiiriyay, markaas ayuu bilaabay in uu iska murugoodo. Runtii wuxuu bilaabay in uu igu soo sikanayo. Markaa waxaan iska dhigay qof ku mashquulsan taleefankiisa. Dhowr daqiiqo kadib waxaan eegay ilbiriqsi kadib. Markaas waxaan maqlay dhawaq isaga oo sii siibanaya oo u sii dhawaaday. Waan u jeestay oo waxaan ku iri halkaas ma ku fiican tahay. Ina dhalaalaya ayuu igu soo eegay. Gacantiisa ayuu kor u qaaday oo xaggayga ayuu kusoo tiirsaday. Markiiba waxaan qabsaday boorsadeyda oo waan orday. Markii uu dhulka ku dhacay waxaan ku orday wadada aniga oo ku dadaalaya in aan gadaal fiirin. Waan sii waday ilaa aan ka gaaray boosteejada baska ee xigta. Waan soo jeestay si aan u hubiyo in uu meesha joogo iyo in kale. Wuu baxay. Markaan waxaan aaday in aan fadhiisto aniga oo dareemaya nafis. Waxaan madaxayga saaray dhalada dhabarkeeda. Waxaanan sugayay baska. Waxaan dareemay dhawaq. Dib ayaan u jeestay si aan u arko isla ninkan oo muraayada iga eegaya ayaan arkay. Kadib wuxuu bilaabay in uu igu wareego hoyga xaggayga. Kadib waxaan ku iri waan ku digayaa iska joog ee dib u noqo. Anigoo argagaxsan ayaan qeyliyay. Markii aan garab taagnaa waxaan doonayay inaan ordo, laakiin waxaa boorsadeyda uga tagay kursiga. Mana bixi karin la'aanteed. Si kadis ah ninkii baa igu soo booday oo si degdeg ah ayaan uga dhaqaaqay meel fog.